sida guud dadku aad ay runtii ula tacajabeen waxa ka dhacay magaalada sababtoo ah waa markii ugu horeysay taariikhda magaaladani ay fal noocaan uu ka dhaco dadka Soomaaliyeedna magaaladan almost adiga waxa ay degan yihiin qoyskii ugu horeeyay magaaladan soo deganay wuxuu soo degay 1987 marka waa markii ugu horeysay qof Soomaali oo magaaladan macnaha uu dhibaato ka geysto runtii wallahi horta xalay mar ay adigu ahayd sagaalkii wixii ka dambeeyay waxa dhacay in muwaadin Soomaali ah oo magaaladan degan aslaan Soomaali laakiin adiga sanadii ugu dambeeyay magaaladan deganaayo oo dadka xoogaa yar adiga siikiska ah hore ugu jiray laakiin la daaweeyo magaaladii dib ugu soo laabtay waxa dhacday in magaaladii uu ka sameeyay weerar uu adeegsaday midi marka wuxuuna weerarkaasi macnaha ku beegsaday laba qof oo Soomaali ah oo dumar ah iyo qof kale Norwegian adigu dumar ah marka qofkii dumarka ahaa ee Norwegian kulli aad xilli dambe xala dhimatay laakiin labada qof oo Soomaalida ahaa ee dumarka ahaa qof dhaawac culus ay ahayd inkastoo sidaan aniga xogta aan ku hayo hadda dhaawaceedu uu si hore u dhaamo oo stable u yahay gabadha kale tan adigu garabka wax ka gaaray dadka magaalada degan runtii way xalay runtii waxay ku ahayd wax aan wali hor macnaha hore uga dhicin magaalada oo adigu dadku ilaa hadda shock ay yihiin aad ayayna runtii uga xumaadeen waxa dhacay inkastoo wali warbixin buuxda ay soo wada bixin laakiin arrinta xalay dhacday kulli magaalada aad ay u taabatay runtii labada qofood oo Soomaalida ah xaafadda wada deganaayeen oo adigu isku guriga deganaayeen marka exactly wax hadda ka dhaxeeya shakhsiyan ama family ahaan ama inay wax dhex mareen ilaa hadda wax cad lama hayo lamana sheegi karo sababtoo ah ilaa hadda wax oo report ama warbixin oo booliska giisa ka yimid ma jirto marka lama yaqaan sababta uu exactly dadka dariska la ahaan jiray inkastoo uu ku guuro guriga asaga sababta u beegsaday ilaa hadda macnaha cid caddayn karta ma jirto Said macnaha muwaadinkan uu xanuunsanaa hore macnaha waxa loo geeyay qaybta psychiatriga marka sababta kulli loo soo daayay aniga shakhsiyan أنا information كما هي لكن معناها إنسانها وقياسي كرنا معناها صابت قف حنو سنة انتلو لقي سكاتري معناها دنا ديب لو سؤالي برشة معناها قف كاسي at least إن يجوار كان إني قف وصيد هرو ودعمه أو أي داوين لكن ما دام هو حالة عايش وبدنتها والمرة والباب وضن كان أنا وضن accountability وكجرا مركا ولو وضع حسابتمي دونا وحالة داعي معنا إيو مرة ببديب والله لابنا وصوبتي لو سود داعي إن مركي لو سود دينا يقوان كالغاتين وها قوان صح مركا وضع سلا حسابتن معناها وإيمانيسا ولا مهوران أرنتن حنسلي هاي runtii waxaad moodaa in gaabis weyn waddankan uu ka jiro la socodka dadka ajaanibta waxaan yiraahdaa sigisi problemka qabo macnaha dadku Soomaalidu way ogyihiin in badan oo ajnabigana waxa iska normal oo anaga aanan wax weyn u aragba in dadka sikiskiga macnaha dhibaatada cudurkan la leeyahay waalida ama ha ahaado midka fudud ama midka waxaan yiraahdaa culusba dadkeenu macnaha kuma baraarugsano dhibaatada uu yeelay macnaha bulshada ku reebi karo cudurkaas marka arrintan waxay macnaha runtii abuuri doontaa in hay'adaha waddanku inay dib u fiiriyaan oo ay xal loo helo macnaha sida arrintani looga hadli lahaa dadkan cudurrada qaar ee dadku qarsanayaan oo ajnabiga ama dadka ajaanibtu ay normal ay la tahay oo ay macnaha ay inta badani aysan bannaanka keenaynin ama ay qarsadaan cudurradan iyagoo oo ka cararaya in dadku ay ku shaabadayaan balse runtii dhaawaca ay dhibaatada cudurkaasi dadku u keeni kara ay tahay wax aan la qiyaasi karin
Okay, dadka Soomaalida oo meesha degan ama community-ga Soomaalida oo meesha degan arrintan saameynta leg bay ku yeelatay. wallahi kulley ka Soomaali ahaan dadka magaalada degan runtii fajac iyo ama kaaga ay ku noqotay waxa magaalada ka dhacay welina dadku ma aynan is arag oo lama kulmin arrintan lagama wada hadal laakiin sida guud dadku aad ay runtii ula تعجبين waxa ka dhacay magaalada sababtoo waa markii ugu horeysay taariikhda magaaladani ay fal noocan oo ka dhaco dadka Soomaaliyeedna magaaladan almost adiga waxa ay degan yihiin qoyskii ugu horeeyay magaaladan soo degan wuxuu soo degay 1987 marka waa markii ugu horeysay qof Soomaali oo magaaladan macnaha uu dhibaato ka geysto marka dadku aad iyo aad ay shock wali u yihiin soo la isku arki doonaa adiga waxa dhacay oo laga wada hadli doonaa